la mid ah sida aad magac weyn uga kasban kartid malaayiin lacagana uga samayn kartid ayay middaa si la mid ah noloshaada oo dhan u burburin karaan baraha internetka ee bulshooyinka dunideenna oo dhan waagan u noqday barganacsiyeedka ugu weyn iyo barkulanka la isku arko. tan waxaynu ku keennay qisada xoogweynaha reer Iiraan, ninkii bootada badnaa ee baraha internetka caanka kaga noqday hanjabaadda iyo halakaynta dadka, oo ugu dambeyn dadkii uu baraha internetka kula saaxiibay bartilmaameed isagu u noqday. معلوم نمیشه الان اصلا دیگه نمیشه با پدرم صحبت کنم من مادرم که باش صحبت کردم lama hadli karo aabahay hooyaday markaan wacayna waxay ugu tiri ma aha wiilkaygu kanaan ka arkay TV-ga wiilkaygu intaas waa ka xoog weynaa ayuu ku cabanayaa. Sajaad Jaabiri oo loo yaqaan Iranian Hulk ka oo mustaqbalkiisa feerku burburay ka hor inta uusan bilaabanba qadarta ayaa ka dhigtay inuu dagaalkiisii ugu horreeyay ku wajaho ninkan ay waqtiga dheer isu hanjabayeen ee Martin Ford, xoogweynaha Ingiriiska ah ee ku caanbaxay jirdhiska iyo la dagaalanka dadka ay isku miisaanka yihiin. Sajaad oo doonayay in dagaalka isaga iyo Ford noqdo kii ugu horreeyay ee heerkiisa xirfadlenimo iyo mid uu ku ibo furo waayihiisa feerka ayaa noqday mid ku dhammaaday si lama filaan ah inta aan la isla gaarin riigadii ama fagaarihii ay isku food saari lahaayeen. ayaa gacanka hadal koobani ku dhex maray jiimka ninkan la yiraahdo Martin Ford, taasoo tustay inaan Iranian Hulk diyaar u ahayn inuu cid iska celiyo. hal mar oo la kala tuuray isla goortaana uu dhulka ku dhacay ayaa muujisay taagdarradiisa, taasoo sababtay nacayb xoog leh oo uu kala kulmay bulshadii malaayiinta ahayd ee ku xirnayd barihiisa internetka. xitaa waalidiintiisa ayuu dhaleecayn xooggan kala kulmay, kuwa oo ay lama filaan ku noqotay in wiilkoodii xoogga weynaa waa kii Iiraan ugu xoogga weynaa ee uu dunida ku hor ceeboobay. dhaleecaynta uu kala kulmay baraha internetku waxa ay sababeen heer uu ku dhowaado inuu istilo, guud ahaan xirfadii uu tababarkeeda waqtiga dheer wadayna ku burburto xitaa inta uusan bilaaban dagaalkiisii ugu horreeyay. And for me, I've phoned up the organiser. I can't fight this guy. I do not want to be responsible for this kid, one, being bullied, and two, taking his own life, because that is the only way it would have ended. kadib dhacdadaas waxaan ku yidhi lama dagaalamayo ninkan, ma doonayo inaan sabab u noqdo inuu cunugani inta fadeexoobo dabadeed isagu isqaarajiyo, sababtoo ah taasi waa sida keliya ah ee ay ku dhammaan doonto. ma rajaynayo inuu cidnaba la dagaalamo, waayo taasi ma aha mid isaga u fiican. haddii ay dhacdona si aan fiicnayn ayay ugu dhammaan doontaa. taladaas ma qaadan Iranian Hulk ee dhacdadaas kadib ayuu damcay inuu wajaho qofkii labaad ee ugu jiray liiska. 30 ilbiriqsi gudihiis ayuu isoo kula kulmay cawaaqib xumada looga digay, taasoo ugu dambeyn soo gabagabaysay rajadiisii ugu dambeysay ee waayihiisa feerka. tan aynu ka baran karno qisada Sajaad Jaabiri ayaa ah halista kaaga iman karta baraha bulshada oo sababi karta khatar nafeed iyo isku dayga xirfad aan taada ahayn tan laga dhaxlo.